boqolka sano haysta qof waxa weeyaan xumaanta dadkan beeraya meeshan meel walba dhufays ka xidhay in la yiraahdo waan ka baxaynaa meeshan waan heshiinaynaa la yiraahdo ma heshiiskuna waa iski dadka in la badbaadiyana waa is waxa weeyaan hadalka waan sii badiyay hadalkaygu waan badiyay waxa weeyaan maantana gawaani nin dirawlay ku dileen magaalada horteeda taana nin de dhagalo oo hindhalay uu la tagi doonaan ay oranayaan dad ciise allaayay oo meesha ku dileen nin ciise allaayay war ciise wuxuu laayay malaha waxa weeyaan ciidan waxay dileen nin bay waxa weeyaan ninka dirawlka waan soo dhigay khadka way dileen gaarigii ka dhaadhiciyeen sidii ninkii hore Djiboutiyaanka ay u dileen bay u dileen hay ninkaasi ma Soomaali waa mise ciise waa ninka ay dileen ay gaarigii kala dhaadhiceen nin wuxuu ahaa amxaara ninka waxay u dileen wax kala maahe waxay ahayd kolka aad soo maraysid cundufo markaad soo maraysid iyaad ku dhaadhacdaa oo cuntada ka cuntaabay ilaahay baa nagu dhaariyay ka waran cuntaad ka cuntaa magaalada cundufo markaad soo maraysid cunadaad ka cuntaa baa la yiri waad ku dhaadhacdaa oo waad seexataa algaada maxay ahayd sariirtaad qabsataa hay ma dadkaaban iya maxay ahayd in saad wax ku dilaya ayaa dad maxay ahayd wax aad juxada iyaa ka dhaadhicinay dhagax tuujinay taabisho isku mid nimankan heshiis iyo islaam waa isku mid waa kii weeyaan hadduu awood u leeyahay awal arba inay dadkani heshiis lala galo waxa weeyaan nimanka dadka horta meesha ka baabi'iyo maalinka aad ay cundufo gaariga ka dhaqaaqay uu awaash maro uu adisaabo maro heshiis waa maalinka heshiis been oo warqad dusheeda no ay saram waxa weeyaan gaariga cundufo ka baxay waxa weeyaan ilaa ay adisaabo u tagay hadii cidiba ay wax ay u geysan weydo awal arba maalinka heshiis uu ka soo baxay waa la heshiin nabad baa lala keenay milyan hadduu keeniyo 10 milyan annaguna aan u geyninaa lacag dhib ma laha waa lacag dhib ma laha waxna dhibaysa ma aha qarshigaana laga waran waan u geyninaa lacagta waxa weeyaan nimanka ku dilay cunaad ka soo cuntay cundufo qofku waa dirawal waa nin Ethiopian ma ninka xamashiga ee Soomaali la soo hadlay dadka dilay iyo dad Soomaali oo meesha wada joogo oo qosli oo deyni maayo kaas way cadda ta kale waxay marmarsiye ka dhigteen ay arrin ka dhigtaan wax wal in deegaanka maxay ahayd in labada eri magaalo sit maxay ahayd cundufi iyo dan la helay waa meel jabhadu ay ku dhuumato warkeeba jabhad lahayn hadaan jabhad leenahay alxamdulillah bay baahay jabhad hadii aan lahayn oo jabhad oo jabhad xaga joogto oo dhufaysa ku jirta hadaan lahayn alxamdulillah bay baahay ma balihin badi cida jabhadeedu ay dhufayska qodatay wax laysana waa iyaga waa la garanay maantana dalka waaba la wada hubeeyay oo nin walba hub baa loo iibi annaga hubna lababa siinba abi hubna si waa may annagu jabhad laguma noqdo ay maxay hayday jabhad laguma noqdo afka jabhadu waa mid sida tooda annagu jabhad mali dadka ka soo maxay hayday in jabhada maxay hayday in waqti xaadir kan taagan deegaan wal isku geey xamar baa jirta maaha pipi kuwaas waxa laga yaabaa deegaanka Soomaalida inuu heshiiska la galayo pipi kolka laga reebo gobolka saddexaad kolka laga reebo inta kale waa bibi zone soosti baa leeyahay Gabriis waa zoonka ugu daran gobolkaas gobolka inta laga reebayo waxa weeyaan sharciga loo keenay bibi ma jirto anfarta bibina way tahay bubu way tahay bibi way wax walba way tahay anfarta waxa weeyaan awal arba inaa masagnaalen yaamat ahlan ganzab bir yaamat ahlan 10 milyan thank you
እኛም ሰጥተናል። ከዚህ በላይም ሰጥተናል። ሶማሌ ክልል ሰጥተዋል። የሶማሌ ህዝብ ሁሉም ለሰላም የቆመ ነው። ግን ካንተ በላይ ይህ አርዱፍ የተባለው ጉጉማ ለዚህ ለብልጽግና ህገ መንግስት የማይገዛ ከሆነ ስርዓቱን ይዛል። ልክ ህወሓት ስርዓት እኔ ለፒፒ የሚባል አላቅም ብሎ መስመሩን እንደያዘ ይሄም ፒፒ አላቅም ብሎ በህጋዊ መንገድ ይምጣ። ፒፒ እኛ ፒፒ እኔ ለምሳሌ ፒፒ አይደለሁም፣ ፑፑም አይደለሁም፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ግን በሰላማዊ መንገድ ነው ሁሌ ነገሮችን የምንጠይቀው። እኔም የምጠይቀው እንደዚሁ ነው በግሌ። ስለዚህ ከመንግስት ከአወል አርባው የአፋር ክልል መንግስት በላይ ከሆነ ከመንግስቱ በላይ ከሆነ ይናገር ለፌዴራል መንግስት። ይህ አርዱፍ የተባለው አጉጉማ የተባለው ታጣቂዎች እኔ አልችላቸውም፣ ሌሎችንም ጨምረው ሚሊሻም ሰርተዋል፣ ሌላ መንግስት ሰርተዋል ከኔ ጋር እና ከኔ በላይ አቅም ናቸው፣ እንደውም እነሱ ናቸው መንግስት ብለው ይናገር። የጸጥታ ኃይሎች የመከላከያ የፌዴራል ጸጥታ አካላት ደግሞ እውነቱን ይናገሩ። ዛሬ የተገደለው ሹፌር ማለት ነው የተገደለው ሹፌር እኮ ከወንድፎ ለምን ምግብ በልተህ መጣ ነው። ይህ አስነዋሪ ነው። ይህ ድርጊት አስነዋሪ ነው። በጣም እናዝናለን። እንደዚህ አይነት ድርጊት እኔ በህይወቴ አይቼ አላውቅም። ደሌሌና ወንድፎ የራሳቸው ሶማሌ ዜጋ የሚኖርበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ለሰላም ከሆነ እንትን የሚባለው ለሰላም ይባላል። ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች ደግሞ ትክክል ሰላም አይፈልጉም። ስለዚህ ህዝባችን በከንቱ አይሞትም ነው። ጨርሻለሁ።